الحمد لله إلهي بام هذله صحافة وإذا كم هاد علنا يا كلن كان dadku way tirsanaya dayna waa ka maqan yahay dayartiya saboolkiya anigiya dacwarantuna isku digasho mihiina daawaanu leenahay diilaliyada cuslaysiya daalaadhacoodan aniguna damqanaya xaq hadaan ku daakiro madayrkii makaan gubi hadraawi baa inta yiri maanta waxaan jeclahay xaaladda taagan inaan ka hadlo intaanan xaaladda ka hadlin eray taariikha baan jeclaa inaan dib u jaleeco oo tan maanta xiriir la leh 2017 ayaa waxa dalka ka oogmay muran siyaasi ah oo la xiriira doorashooyinka xilliga taagnaa muranka markuu cirku isku shareeray waxa is abaabulay guddi abwaana ah waxay la kulmeen commissionka golaha guurtida madaxweynaha xilliga jiray ugu dambeyn waxa la isu keenay saddexdii gudoomiye xisbiyada oo saddex musharaxna ahaa waan xasuustaayo gudoomiyihii kulmiye oo imika ah madaxweynaha iyo qoladii wadani labadaba ana la diray xiriirkooda oo la soo hadlay saddexdii musharax baan isu keenay Muuse Biixi Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe arrintii baa la rogrogay waxa cajiib ahayd maanta waxa ogtiin waxa la isku hayaa mucaaradka oo doorashada madaxweynaha la qabto iyo xukuumadda oo waxa ka soo horeynaysa tii ururada laakiin maalinta waxa la isku hayay aad bay u qosol leedahay marka maanta loo eego maalinta Muuse Biixi oo ahaa gudoomiyaha kulmiye iyo musharaxa kulmiye wuxuu taagnaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ma ogola in doorashada maalin lagu daro Cabdiraxmaan Ciro oo wadani ah oo musharax iyo gudoomiye ba ahaana wuxuu taagnaa doorasho suuragal maaha muddo kordhin la sameeyo waayo abaar kulul oo baahsan baa jirtay runtiina way ahay arrintii baanu rogrognay waxaanu go'aaminay kow in saxaafadda hadalka la isu marinayo la joojiyo laba in doorashooyinka loo riixo hay'adaha ku shaqada leh siiba commissionka iyo guurtida annaguna aanu ka hawlgalno waan xasuustaayo arrintii waa la isla qaatay commissionka iyo guurtida baan u tagnay waxaanu ku niri arrintaa aanu xisbiyadii ka soo dhamaynay idinkuna xilli farsamo kordhiya oo aan ahayn muddo dheer waxaan filayaa 10 bilood in la kordhiyay waayo xilliga aanu shirinay waxay ahayd bishii koobaad 15keedii 2017 doorashadana waxay dhacday November isla 17 taas waxaan u soo qaadanayaa ismaqalka iyo tanaasulku faa'iido mooye inaanu khasaare lahayn xaaladda maanta taagan madaxweynaha eray baan oranaya mucaaradkana mid baan oranaya shacabkana mid baan oranaya madaxweynaha waxaan leeyahay xilligii musharaxnimada kulmiye isku qabateen madaxweynihii ka horeeyay Axmed Silaanyo xataa ay gaadhay sawirkaagu inuu dambi noqdo gaariga lagu dhajiyo ayaan maqaal qoray jaraa'idkii xilligaa soo bixi jiray baan ku qoray waxaan ciwaan uga dhigay madaxweyne waa yeelmo eed beelo anigoo la hadlaya Axmed Silaanyo waxaan uga jeeday xaalad kasta oo timaada eedu waxay ku soo horeysaa ninka markaa meesha odayga ka ah ay eedu ku soo horeysaa maanta halkii waxa taagan oo madaxweynaha Muuse Biixi madaxweynaha waxaan leeyahay ummaddu waxay ku siisay shaygii waxay hayso ugu mudnaa waxay ka dhigtay madaxweyne waliba si kalgacal bay ku dooratay ummadda ku dooratay ee taladeedii ku dhiibtay duruufaha maanta haysta waa dugta abaar baa jirta maciishadii oo kacday baa jirta suuqii dhaqaalaha oo gubtay baa jira shaqo la'aan baa jirta baahsan ummadda duruufahaasi haystaan ma mudna mana gayaan in buuq siyaasadeed loogu daro niman mucaarada oo faramaran oo aanan waxba u dhiiban eedda kula qaybin mayno eedda koobaad madaxweyne adiga leh
haddaad qalalaasaha iyo siyaasaddaa soo afjartana ammaanta koobaad adigaa leh dalkan dee xogagaal baad u tahay waxaa lagu soo waday sharciga waxaa lagu soo waday in tanaasulah waxaa lagu soo waday in xeer jajaba waxaa lagu soo waday in tudhaalo ah waxaa lagu soo waday in ismaqala intaasoo dhan xogagaal baad u tahayoo dee nin meel jiray maadahayn waa ayaan daro maanta inaad ummadda waxgaradkeedii culimadeedii salaadiinteedii iyo aqoon-yahankeedii ka gacan taagato hadhowna marka midowda yurub iyo maraykan iyo ay yimaadaan aada maqasho waxay nagu tahay ayaan daro waxaan odhan lahaa yaan cidi isugu keeni manin innagu gudaheenna wixii khilaafaad aan ka dhammaysanno madaxweyne waxaan kuu soo jeedinayaa maanta garnaqsi kaagama fadhino waa la iga khaldan yahay kaagama fadhino maanta waxaanu kaaga fadhinaa xal inaad keento waxaanu kaaga fadhinaa inaad tanaasusho waxaanu kaaga fadhinaa hoggaamin tudhaale leh inaad la timaado waxaanu kaaga fadhinaa madaxdii kaa horraysay siday yeeli jireen inaad yeesho waxaanu kaaga fadhinaa asxaabta golayaasha waxgaradka intaba inaad isugu yeedho oo aad miiska soo saarto sharciga dalka duruufaha jirana tidhaahda eega iswaafajiya anna oday baan idinku noqonaya halkaa xalku ka soo baxo taasaanu maanta kaaga fadhinaa gaariye ilaahay u naxariistay maansadiisa waxaa ku jirtay nimaanu uliya diirnahay oo dareenna kala galay ama daadna kala xidhay u dabaalo mooye ma dariiq kalaa furan dabaalashadaa uu sheegaya waa tanaasul iyo dabac iyo maqaale iyo odaytinimo taasaanu madaxweyne kaaga fadhinaa madaxweynaha horta isaga midhkaasaan odhanaya mucaaradka midh baan leeyahay waxaa ku baaqdeen mudaharaad nabadeed laakiin kii maydaan dhigin anigu waxaan u arkaa inaad dagaal rideen 7 qof baa dhintay 100 iyo jarjar baa dhaawaca intaasoo hantiyaa burburtay dagaalada qaar baanay khasaaraha intaa leegi dhicin iyadoo intaasina gaadhay shacab ahaan ayaa noomaydaan garaabina haddana waxaad tidhaahdeen waa sii wadaynaa kaaga darane haddana waxaad doonaysaan inaad doorasho gashaanoo aanu cod idi siino ka sii darane waxaad doonaysaan inaanu markhaati idiin furro oo aanu nidhaahno nimankaa waa laga khaldan yahay bal gooni isugu noqda oo intaasi siday isu waafaqayaan bal ka soo taliya iyo siday isu qabanayaan 3 hadal oo taariikhda galay ayaan doonayaa mucaaradka inaan xasuusiyo 2003 doorashadii dhacday madaxweyne xisbiga kulmiye waa laga helay madaxdii kulmiye waxay isku dayeen inaanay natiijada aqbalin qalalaase iyo rabshadna ay ridaan axmed siilaanyo oo musharaxii laga guulaystay ahaa wuxuu yidhi kursi dhiig ku daatay ku fadhiisan maayo 2010 xisbigii udub oo talada dalka hayay yaa doorashadii laga helay waxay isku dayeen inaanay natiijada aqbalin madaxweyne riyaale wuxuu yidhi somaliland gacanteeda ku burburi mayso 2017 xisbiga wadani doorashadii waa laga helay waxay isku dayeen inaanay aqbalin cabdiraxmaan ciro oo musharaxii wuxuu yidhi dalkayga damacayga siyaasigaa u burburin maayo dadkayga dhiigoodana u daadin maayo cabdiraxmaan waxaan leeyahay hadalkaa wanaagsanee taariikhda kuu galay ha ka daba keenin mid kale oo kaa masaxa mucaaradka waxaan leeyahay ummadda aad doonays madaxnimada ka doonaysaan xaaladdeeda waa aragtaa haddaa maalin qurana tidhaahdaan sixir bararka iyo maceeshadaa qaaligarowday mudaharaad baanu u samaynanaya ha la soo baxo waxaanu idii arki lahayn niman dalka lexejeclo kale laakiin may dhicin mudaharaadkiinii wuxuu noqday iyo qayladiinii oo dhami kursigaa madaxweynaha kursigiisa iyo muuse biixina labadaba somaliland baa ka culus mucaaradka waxaan leeyahay gaariye wuxuu yidhi ilaahay ha u naxariistee
ragga doorashada raba uba diidi mayne horta mee dalkii iyo dadkii uu xukumi la waxaan leeyahay mucaaradow siidhiga iyo dhagaxa asidataan labadaba dhulka dhiga dabeetana halka loo dhaafayo aan isweydiino mucaaradkana intaa ayaan leeyahay golaha guurtada midh baan leeyahay Soomaalida waxay ku maahmaahdaa nin maqan tabaydii waa nin jooga caydi maanta raggii xabaalaha galay in la xasuusto ilaahay ha u naxariistee ee Sheekh Ibraahim lahaa xaaji Cabdi Waraaba lahaa ee Sheekh Axmed Nuux Sheekh Furra lahaa ee Sheekh Muuse Goodaad lahaa ee Sheekh Khalifa lahaa ragga maanta in la xasuusto la yiraahdo haddii raggaasi nool yahay arrinta meel bay dhigi lahaayeen waxay dhaliil iyo saluug ku tahay golaha guurtada maanta jooga waliba waxay saluug ku sii tahay gudoomiyaha Saleebaan Maxamuud Aadan Saleebaan waa u qiraya inuu marxalada adag dalka kala soo dabaashay oo ay u dambeysay doorashadii shir gudoonka baarlamaanka laakiin arrintan maanta taagan sidii uu dhex galay iyo hadalkii u dambeysay uu yiri mucaarado tashada labada midna lama jeclaysan guurtada waxaan leeyahay doorkiinii qaata leedku yaqaanay oo marka wax dhacaan xaqiina loo soo carari jiray odaytinimadiina muujiya guurtadana midkaa ayaan leeyahay ugu dambayn shacabka waxaan leeyahay shacabka ama bulshada waa la qaybi mar reer ahaan baa reeraa loo qaybi mar mucaarad iyo maxaafid baa loo qaybi mar dana iyo masaalix baa loo qaybi waxaan baaq u jeedinayaa wax garadka dalka waxaan leeyahay yaynaan noqon daawadayaal waxa dalka ka dhacaya sidii qolo kubad daawanayso kale oo hebel ba saa u laaday iyo hebel hadduu halka istaagi lahaa yaynaan noqonin cidina oo maqan ma jirto xilku inagu ina saaraya xukuumaddu waa teeni asxaabtuna waa ku weeni aynu doorkeena qaadano wax garado askarta waxaan leeyahay nidaamka iyo kala dambeynta iyo xukuumadda ina ilaalisaan waa waajibkiina oo idinku bogaadinayna laakiin shalay jamcihii culimada waa maqlayseen masaajidada waxa la idin sheegay qofkii qof dila aakhira isagu ma laga xisaabtamaya amar baa leeysiiyay shaqayn mayso askaray rasaasta dadka yaan la dhicin dhalinyaradana waxaan leeyahay dhagaxa tuuraysa haddaad ku dhimato mudaharaadka cid allaale cid ku ogi siyaasigu wuxuu oranayaa dadkii ku dhintayna waa u tacsiyadeynayna inta dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo laakiin waxaanu leenahay doorashada hal la qabto intaas uu ku oranayaa ninka mucaaradka hadhow cid dambe oo reerkaagi iyo waxaagi ogina ma jirayso geeridaasi reerkii ay ku dhacday bay qabsanaysaa horna way u dhacday dhalinyaroy dhagaxa aad tuuraysaan iyo mudaharaadka iyo mustaqbalkiina ka feejignaada anu markan saa u hadlayo mucaarid iyo muxaafid midna ma yihi aqligaygana xor baan u ahay waxaan u hadlayaa wixii ii muuqda ee dana ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu aafaadka iyo abaaraha iyo mashaakilka inaga dulqaado qulubteena isu soo jeediyo talada wanaagsanna waafajiyo iyo tawfiiqdaba madaxdeennana inooga dhigo midina maqasha oo inoo dabacda oo inoo tanaasusha mucaarad iyo muxaafidba innagana inaga dhigo kuwii doorkooda garta islaamnimada iyo iimaankeenana inoo xoojiyo ayaan ilaahay inooga baryayaa qoladiina saxaafadda mar labaad waa u mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh